بالجيلان هي مشاكل كيس مسكدا يو أرجع سكنا قالوا يورني أرجع مركو نقضوا أيو بريجي نبى لور نفلو كيني سلاد برعو سلام بسودي بني سد يجنا لور نفلو كاتو سلام نسوي بيا أدو مركو برعادي مادة سل ورا كو كقاعد سلاد دي برعو يدلالين تيوحي أيام مركو ونقضي الليل البركان طا العكتي محبة صور سميسي صح قبل يا كترني سو ده العكتي كلي كورة سبا صح مركا كيف أنا بدري أو سيدا إسماعيل مرة هو رأي بريجا سو سيلته أنا نوحا بدري بري وهريس وضع كان كنا قضي أنا مريكن كتير سيدا إيربورت كهرجيس هو رأي يا لمن كيستحدث يستفاعي أنا اللي بدي بدري مركا بالله بدي قوي بنا حاجة ما دايرة صح يعني تسيا مركا قوي جوهران يعني تسيا إسماعيل مرة قوي إسماعيل روح ورنايا niman yahow awoo iyo abka aan sheegto iyo anugu abadkay ma arag iibsi lacageed adduun baan lahaan jiray raggan ka israa waaye ololahan wax kaga qaybsan jiray ululuf duulaani mar un baan amaamiday waxaan abahay faline afar baan u soo dhaxay tuuladii awrta loo raray albaabkii burcaan tagay anoo aaladii wade aminkiiba la yimid sidii eeg leeyahay oogii hore nagu kaceen aridilaalkii dar iimaanka laga qaaday bay ila ahaayeen ama kaagay goortii wankii adhaxda tuujeen intaa weeye ma ahadii la islaaqeey asraartankii baa qalbiga aad u xiidhamay ilmaroojihii baa khatalay kii aan aaminay afka reer magaaluhu yaqaan waa ka oodnahay afar bowlad lagu gooyay bay igu aluubeen anigoo arkaya gacmaha liigu iibsaday ودلالين أريجادي ويدين ملا أون كلا بحاي هو بقنت أود لقى صورة إلى أحياء وش الشيء ده اللي يصرف بيجو إلى وين أشعات الركبة يقبض شيء إذن كويديست إسلامتي وشوا ودسا وكليه أنا هذا تيدي أم بدلي أذكر كل أنت مدارك أنا مدارك هرجيسان كلا خومي كون يسقال بقول يسقاشني تطودي حالده يثبت شيء مكو روي هاي لكن بريغاسي حالده يعطي أنا مركب واحد نما يهو أيان أمنكي عندوفي أرلقي دلكينيو ما أرك أقلكي أودناي الدون بان لا صوت تبعيه وقبت علينا ولو لحوك سيبان كتشريه ولو لفقالات مرقم بان أمام إنا سفر على صحي أفر بان إيرلاين كسيدة حي أقبكي ريراهي إيربوركي هرقيسان كدقى إيرلي سمركي أمنكي اللي يمدسي إيق اللي سوقيه وقتي هورا اللي يقول كان علاب علوسي قار نور شحاد إيقي لا هاي أما كاقي قورتي صرفي إيقا إلابين عمي كسوع يا انتاوي يما هذه السلاقية أسرارتن كيف مدح أد وحيد ماي اتحضروا شددي هنشي إنن كي روناي أفكر رجيسوه يقام واقع اتحصو صرف يعشوري يقو ألوبيني أنا يقو أركاي رسيل يقو أبارين شرع يقو أستي دركلا أود سوتش بيه در إيمانك أود لغا سوري إلى أحايا وشتشي داد بالا لدعية إيلا داعلسي وحاشحات هي إيربورت كحري إذن كويدي كوي كوزي شحاد لا والله maxaa airport iyo shaxaad isku xidhan baadee lama kan magaranaysa aad u fintuuqay wallahi ka ismaaciil markaa ismaaciil marna halka uu ka hadlayay ayaan uu halka ka hadlayay hadaba markaa maadaama Norway ay si fiican soo dhaweysay waxaan halka ka sheegay gabadheeg aanan weli cidna u sheegin oo fresh ma sha Allah oo aanan oo buugan ku soo dari doono markii horena aanan qorsheynaynan cid bala sheeri karayo waslaha dadkuun surprise ugulig ha ku noqoto Norway oo nasiib heshay marka gabadheegaasi wuxuu ka hadlayaa quruxda dumarka ma sha Allah marka waxa jirta Allah naxariistay aboonkii weynaa loo injiray Maxamed Nuur Fadal ayaa gabay tiriyay gabadh u jeclaa yaa وقولها لسته قلبي جماني قاعد لدي كريباي قبل يجي ساسو ولو قدكتو سكولة حتى سكولة أنت قاعد لو قدكتو وقبل قاضية أيوة حد شرتها هذا باي سو أنت عايل كانوا كمان هذا له أنت وقبل كوسه فين يقرح ذا وكهذا يقبلها أنا نوكهذا مركا أنتي سي هراء قبلها قرح مركا نوع سكون برجري قرح الدمر كي هراء يقرح الدمر هاي مكا مركا اللي بيسته يا مركا قافيدين سيدي بانو قاطو ما بدلين marka kii horaan tusaya intii horeetay aan ka soo qaatay Maxamed Nuur Fadal iyo intii dambe aan waan bedelay marka Maxamed Nuur Fadal wuxuu oranayaa kii horeeto
dhubadqaadka timahaada haldhaa dhalankii moodayso cirid dhuxula iyo sunniyaha dhibic dawaadeeda dhumbal wadaacad dhoolaha ilkuhu dhaygag noo dilay saddex dhudalay dhaclaha iyo dawalay dhexer wanaageeda sandi dhoohan qoolow sidii lagu dhex taaleeyey shinjimaha gamaha lagu dhiftee saayiq lagu dhoobay dhamideeda maantay dirays dheeg iskaga yeesho ee ay dhabeelnimo iyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta lagu halaafiyaha markay dhibil u sii dayso kolkay socodka dhiif uma wadee dhibi sidii leexdo maanta ninkay dhinac martaa dheelmitaan galaba dhaqan iyo adduun lama hareen dhogorta xoolaade waxa allaalay wuxuu soo hayo buu leeyahay wuxuu la soo hayo ayuu dareerinaya buu gabadhaas maanta dee ag marta ninka odaga haddaba anakii baan bedelay oo dad dumar ka dambaa anna waxaan timo koofeer lagu soo dhiso dhimicdu nuurayso يا دبناها ليبستيك لا دعه دبعس عس موديس ilkaheeda dabarka iyo dhalaal dhoolka qosolkeeda saddex goor dhameystiran hawqaad dheeha laga yaabay designer shandaday qaadatay garabka dhiitaysan gacmaha dahabka lagu dheere xidna lagu dhaafay wajigeeda nuur iyo dhalaal makeup lagu dhoobay kabaheeda dhaadheer markay dhabi sidii leexdo dharaartay dirac bacweyna dheegsiga yeesho kolkay laafiyaha dhaqaajise socodka dhowrayso maanta ninkay dhinac martaa dhayga iyo yaabka wuxuu xoola baaka dhigtay buu jeeg ku soo dhigay ilaa kii horeeto isagoo xoolo lahaa maanta wuxuu yidhi dhaqan iyo adduun lama hareen dhagarta xoolaad ayuu isagu yidhi anna waxaa idhuun maartaa يا wuxuu xoola baanka dhigtay buu jeeg ku soo dhigay waxa wixii oo dhan ba hal jeeg buu ku qoraya sii deynaya marka waxa weeye waxay ku tusaysaa de marka quruxdii de dumarkii hore sida ay loo bisan jireen sida haayeen iyo tan dambe marka de marka qaar dadka in loo bedelo wixii hore marka buugan imika gabayga ninka kii hore waxa lagu dhigtaa dadka hore suulada lagu dhigtaa marka maalin baan in yar ku yar qoray Facebook ama se gabadhii soo qotay tirwara haddii la ogola haddaad kaaga soo dayso dhan kanaaman carruurta u dhigayna jeegan iyo bacweynahan iyo ayay fahmayaan waxaad ka dhawaajisay mar dalka Norway inaad tiri abwaaniin badan baa degan fanaaniin badan waad u qartay wax tiri maasha Allah aad u wanaagsan yihiin laakiin waxa jirta sheeko aad ku soo qaadatay Norway inaan nin aad u wanaagsan oo sharaf loo xamar degan inankiisa ka dhimanaya bal maadaama Norway aan caawin لو سو ختم شيكada Norway way sheekadaas aan ku soo khatimaya aad sheekadaas waxay ahayd waxa la yiri nin ka soo jeeda magaalada Muqdisho reer Norway ayaa aabihii u diray telefoon aabo marka ninkan wuxuu ka yimid reer iska faqiirin ah marka horeeto iska kala degay ninkan markuu banaanka yimid yarkan ayuu aabihii iyo reerkoodii taageero lacag u diray oo odaga aabihina odayska wuxuu iska haadiinta intii isaguna ku fiican waxa dhacaysa wuxuu oranayaa marka wiilkii oranaya aabo gabar baan guursanay mas'uulina ari khayra sheegtay gabarta yeehed cidee ahayd soo gabartan aabo maartay gabar oo Soomaali maahno gabar oo cadaan ah ya markaas odayga maxad gabar cadaan ah odayga ayaa marka waxa way sheekadu xogsan sida odaygaas u hooga tusaalay inankiisa intuu ku qaylin lahaa wuxuu aabo ma garanaysa ma xasuusta markii oo dadka faqiirinta iska ahayn oo suuqa xoolaha degan soo waxa xasuusta soo cid dariskeena ma xasuusta soo waxa xasuusta yeehed qadiga Sheekh Ali adigana Sheekh Ali maxaas xoolo ka qabada soo dibiyaas ka qabay Sheekh Ali xoolaha dibi buu lahaa dibigaas maxaas ku subin jiray dibigaas waxa ku subin jiray xoolaha kala la asayaash kala loo keensan jiray dibigaas ugu boodi jiray marka saas lacag lagu siin jiray ya bakaraysa dibigii xoolaha u rimin jiray marka saas la odaygiina si fiican ay gartay adiga wali ma aragtay reer cid inta u timaado oo dhahayso Sheekh Ali dibigiini ya wiishan aas dhalay qaata oo sayaasha aasas ka dhalay markaas odaygi yarkii ma arag sidii mugo adiga dibigii Sheekh Ali Nuuru ka noqonaysa adle waayo يعني المها عدان كان المها
dhashaa wixii dhalay waa la qaadanaya isku dayno runtii waxaan u malaynayaa inaan laga bogaan karin lagana dhargi karin Cabdulqaadir waxaan doonayaa inaan weydiiyo Jamaal joog kale kafta kale isna ah dhex maray reer Djibouti iyo waxaan ka akhriyay buugga runtii oo aad u qosol badnaa marka wuxuu dhex maray reer Djibouti iyo reer Geesa waan gartay sheekadaas in fact sheekadaas ninka ku dhacday Mareykan baa ku joogaa laakiin magacayga sheegin buu marka waxa dhacaysa hablo reer Djibouti soo xagaa baxaya bari hore ku dil soo xagaa bax jiray Hargeysa imanayaan marka wiil dariskooda oo ayaa lagu war gabdhaha hadda soo shirshirey soo wareeji magaalada soo tusto wiilku marka gaari yar qarxay leeyahay gaari yar oo bichooda kii geerishka geenaya soo hagaajinaya marka isna wuxuu isleeyahay gabdhahan iska dhis isna soo labisanayaa marka mid adeerkiyo Sacuudi ka yimid oo cadar iyo xilay mid parfum gurigiisa uu tagay cadarkiisa ka soo shubay ya marka soo hablii qaadaya gaarigu wada moqtay marka gaarigi maantii uu geerishka geey daraadii ayaa adigu waxa soo oraya petrol yar wax yar oo petrol ya marka reechu tan petrolka saas buu yaqaan oo sans oo Francisco sans oo petrolki marka soo gabadha marka soo hey ma saas baa uraaye ayaan moqtay oo dadku waxay uriyeen petrolki markaasuu ninkeena ana isku soo sheegay markaasuu isna wuxuu designer kii show cadarkaas ku jirta bay garteen bisil magaciisa hey saas ma lasu soo reerkiisa saaska soo soo isna wuxuu qaaday cadarkii isku soo shibay in magaciisa saas la yiraahdo ay garteen habli runtii waxa weeye sheekooyinkani waxa halka lagu soo koobi kara maaha oo lagu dhameyn kara saacad marka su'aasha ugu dambeyd ku weydiinaa maxaad faraysaa dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool haday noqon lahayd xagga waxbarashada haday noqon lahayd xagga kale la dhaqanka ummadan aan nool nahay ma wallahi waxa weeyaan waxaan oran lahaa in horta runtii intii hore weyn nidhi dadku wadankada la joogteen dadkana waa la dhaqa waa la dhex galaa dhaqankaagana waa la haystaa dadka Soomaaliyeed waxaan moodaa in laba extreme ay kala sameeyaan qaarna waxay oranayaan dhaqankan tuureynaayo dadkan u dhex gelina ya oo qoladii kale dhex gelaya si waalan qaarna waxay oranayaan qoladii kale dhex gelimayno dhaqankaagan haysanayna labada dhinac kala gelaya waa labada extreme inaad kala gashid maahe adoo shaqadaadina iska wata dadka kalena dhex geli karaysa dhaqankaagina adigu iska wata iska hormarinayo ayadoo xoolo sameyn karaysa isku dhex wadi karaysa marka waxaan oran lahaa maartay afka Soomaaliga yarka hala baro maartay runtii dhex galaan ya aniga hadda ciyalkayga warbaha dhibaato dadka qabsanaysa marka waxa weeye waxa fiican in Soomaaliga ciyalkana dad la baro wadanka inta la geenayana waa muhiim yarku waxay yeeshaan sense of belonging markii guri wadanka tagaan waxa ogaadaan dalay in meel ka soo jeedaan ya niyadda u dhistaa ya ilmaha laakiin hadduu meelahan kale uu kali joogo wuxuu soo arkaya inaanu meelna lahayn laakiin qabweynaanaya caruurta niyadda u dhisa ya had u sheegay inay meel fiican ka yimaadeen in dad dhaqan ka yimaadeen in family wanaagsan ay ka yimaadeen niyadda u dhisa caruurta oo hal loo dhiso hal adkii yaani maartay niyaddani waxa weeyaan niyaddu waa sida beerta kale in la beero maalin walba la waraabiyo baahday caruurtaana ilmuhuna waa sidaas oo kale maalin walba in hadal fiican ku shubti hatta hadal ku jirto waan ku jecelahay oo kaliya ayaa wax weyn u ah intaasana anigu ku soo gabagabay runtii waqtiga oo aad noogu yar iyo abwaanka oo macaawo dhoofaya ayaa waxaan runtii idinka mahad celinayaa abwaan iyo aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen welcome to Oslo waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaray ee noo hortay Cabdulqaadir runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulano Jamaal Cali Xuseen oo fursad aad u qaaliya runtii waan kaga faa'iideysanay aawa iyo maaragtay miduu nala joogay habeen hore runtiina waxaan jeclaan lahaa in mar kale ku soo noqdo Oslo isagoo inoo soo bandhigi doona dhinacyada kala duwan aqoonta waliba uu awood saari doono qaybta dambaan maaragtay doonayno in uu awood saaro dhinaca waxbarashada iyo horumarka kuwaasoo doonayna inaan u qabano shirar waaweyn oo ku saabsan dhinaca dhalinyarada waliba oo aan doonayna inaan ku motivate garayno ama aan maaragtay ku dhisno niyaddooda waxaa kaloo runtii abwaan Jamaal runtii halkan uga mahad celinaya sida fiican runtii uu uga soo qayb galay waqtigiisa qaaliga ah runtii ugu soo horay uu noo soo siiyey maaragtay in uu nagala qayb qaato xafladda
labaatan guurada maaragtay Somaliland kasoo wareegtay muddadii Somaliland dib ula soo noqoshadii qarannimada Somaliland waad maasantay awaan Jamaal ma waad maasantay waan runta qodobka aad sheegtay waa qodob muhiim ah runtii inta badan anigu wadankan markaan tago dhalinyarada jaamacadaha ayaan la kulmaa oo badan ka jeediyaa waan dhiirigeliyaa runtiina waa sidaan kuu sheegay niyadaas ka mid tahay beerta la waraabinayo niyada ay ka mid tahay ciyaalka loo sheegay mar walba waxyaalo muhiim tahay qof ay ku yara daydaan yara arkaan aad la sheekeysatid muhiimad waqti siisid yaa aniga qudheeda gadaal ka bilaabay barigii dambe بريق هوران اسكو على تاعنا ونيب برسنادي هورا تيجي جرتي حاد سيدا وسمين وي اوان ورقنا ادو عمود جوغا ادو ما سو عاد هرغيس جوغ ورنتي ادو خيسيه اركيان قف اي فيكسن كران دي كران ما شاء الله هادي marka jaamacada Burcoti عمود هرغيسا بربر soo mar dadku waxa weeyaan runtii way fiican tahay waana jecelahay inaan dhalinyarada ahlo marka imikana hadii laftirkeeda dadka qurbaha ay jecelaystaan imika laga yaabaa in sanadkan London qoloyn u tago ardayda jaayisooyin la siinayo oo ay ku casmeen ururada qaar kamid oo aan ka qayb galo sanadka aakhirkiisa ardayda dhalinyarada ku kuulisatay shahaadooyinka jaamacadaha kala duwan noocaas hadda marka qurbaha laftirkeeda wixii baahday waqtiguna isu kaay beego waan jecel ugu dheedeenan laftirkeeda wixii aan tari karayo inaan taro waana wax fiican وانا waxa ugu yeeray qofku uu awoodi karay aadna baa ma sanadii kuna fariinta siisay ma hada aad ma sanadii sax soo dhaw خيارتا wadana dhageysanaysaa intaasuna waxa noogu dhamaaday waraysigii qaaliga ahaa ee aanu la yeelanay abwaan aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo noogu yimid booqasho gaaban noogu yimid soo waliba waqtigiisa qaaliga uu ka soo duulay wadanka Tanzania hadda khaldana isaga sax doona imikana waxaan dib ugu celinayaa waxa kale oo igala qayb qaatay Cabdulqaadir Axmed Warsame iyo anigoo mahada iyo farsamadan waxa naga caawiyay Faadimo Cali Madar marka waxaan dib ugu celinayaa hees cusub hees wanaagsan oo Faadimo Cali noo xiri doonto أبوان كداير جمال علي حسين موسيقي تونسي محمد أحمد الشيخ عين بعينك لحنكي يعودكي عبد حكيم حسن حسين عبدكي رافيها قولينا يا هاي وعنكما أرواحها إنا أبتا أركض هذا وهيكيو إيك مدادا جمشدا رافيها قولينا يا هاي وعنكما أرواحها كان أصلك محبة عروسي ميسوسو أبارنا حبيبتا جعلاي محاحلي هبين بدان جواي قولي مران حسوستي هركيني حيسو إداشدي حبيبتا جعلاي محاحلي هبين بنان جواي قولي مران حسوستي هركيني حيسو إداشدي حالكيني بريقي عد كان أبوريو حرقة هانكيني حريقنا غير وعن حالكيني برقي عدت كان أبوريو حرقة هانكيني
waaye